Barnaamijkii tanina waa sheekadeena caafimaad. Maxamed ayaan la cawil waa wiil 8 sano jir ah. In badan oo cimrigiisa ahna caafimaad darro ayuu la dhibaataysnaa. Xanuun dhinaca kaliyaha ka haystay darteed 3 sano ee ugu dambeysay wuxuu ahaa bukaan jiif isbitaallo dhowr ah oo magaalada Muqdisho ku yaalla seexiyey. Qalliimo fara badan ayaa lagu sameeyey. Nasiib darrase ilaa hadda laguma guulaysan. Sababtuna waa qalliinka uu u baahan yahay Maxamed oo aan waddanka lagu samayn karin. Sida ay hooyadii inoo sheegtayna awood dhaqaale oo ay waddanka dibaddiisa ugu qaado awood uma lahan. Isku dayo badan oo la sameeyey laguma guulaysan in dibadda loo qaado. Hooyo Ismahaan Xasan Faarax oo ka hadashay xaalka Maxamed Yare waxayna codsatay in la caawiyo oo ilmaheeda qalliinkan uu u baahan yahay lagu garab istaago. Bismillah. Anigu magacayga Ismahaan ahan hooyo Soomaaliyeed oo ka dhibaataysan cunugan saqiirka u jeedin oo iga xanuunsan muddo 3 sano ah. Isbitaalada dibaddana waa meel kasta waa geeno oo isbitaal waddanka maanta uu ku yaalo waxna waa looga qaban waaye. Anagana maanta awood aan ku wadno anaga iyo familka mid awood mar in aan ku geyno isbitaalada dibadaha. Marka dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan dal iyo dibadba ha ahaatee. Cunuga yarka waxaa la dhahay Maxamed ayaan la cawin. Daadiisana waa 8 sano asagoo 6 sano jiray xanuunkan uu ku bilowday ilaa aftana hadda xanuunku wuu haayaa. Waxa looga badan yahay kaliyaha hal kaliya hadda waa fadhisaa ma shaqeynayso mid kalena wuu ku bilowday xanuunka la yiri wuxuu u baahan yahay qalliin dibadda ah waddankan wax looguma qaban karaan. Anagana maanta awood uma hayna in maanta aan wadnamis aan geeyno. Ummadda muslimiinta ka codsanayna inay soo caawiyaan meel kasta ay joogaan. xaaladii soo laabaa kateetarkaas u jeedin kaadida ka soo bixi maahan kaadida si kala ugu soo bixayso hadii kateetarka laga daaf xaaladiis khatar ay galeen waxa iga caawisan daryeel hal ayagana aad ayaan ugu mahadcelinayaa inay soo caawiyaan dadka igu bandhigaan dhibaatada ay haysato waxa ay la soo xiriirtay hooyada Maxamed Yare Daryeel Medical Consultant oo ah hay'ad ka shaqeysa wacyigelinta caafimaadka iyo talo bixinta bukaanada. Dr. Dayib Cabdulqaadir oo ah agaasinka hay'adan caafimaad isagoo ka hadlaya arrintan waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay qalliin degdeg ah oo lagu badbaadiyo kaliyaha ilmaha yar ee khatarta ku jiraan. Sidoo kale wuxuu tilmaamay kharashka ku bixi kara isagoo la xiriiray isbitaallo Hindiya iyo Turki ku yaal. السلام عليكم ورحمة الله. waxaana la soo xiriiray hooyo Ismahaan Xasan Faarax iyadoo sheeganaysa inuu ilmo 8 jir ah ka xanuunsan yahay markii aan akhbaarta ilmaha raadinay inaan caafimaadkii riboorada caafimaadka dabagalnayna waxaa ka soo baxday inuu ilmahan qalliin dibadda u baahan yahay. hooyadan waxay noo sheegtay iska daa inay dibadda u qaadee adeega yar ee caafimaad ee waddanka gudihiisa loogu qabanayo inaysan awood u lahayn ay ku dhiban tahay kharashkiisa. waxay naga codsatay inaga ka daryeel ahaan inaan arintaa ka garab siino inkastoo inagu aysan shaqadeena ahayn inaan ka shaqeyno bukaanada caawintooda dhinaca waliba kharashka inaan u raadino gargaar iyo in cid caawin karta balse marar qaybtood waxaa ku soo maraya xaalad aadan ka dul qaadan karin oo ay ku khasbayso danta inaad ka jawaabto. waxaana danqay ilmaha xaaladda uu ku jiro iyadoo uu kateetar ku xiran yahay. qof kasta oo waalid oo ilmo dhalayna wuxuu dareemi karaa xanuunka ay leedahay ilma aad dhashay oo aadan awood u heli karin inaad daweyntiisa ka qayb qaadato kuguna xanuunsan waqti aad u fara badan ayuu ilmahan xanuunsan yahay. waxaana aad arki kartaan muuqaalkii fiidiyoga isagoo kateetar ku xiran yahay taasoo dhaawac u geysan karta kaliyihiisa oo khatar ku jirto in kaliyihii shaqada joojiyaan. xanuunka ilmahan haya waxaa la yiraahdaa vesicoureteral reflux oo ah in si caadi ah kaadida dibadda ugu soo bixi lahayd oo dabiiciga uu yahay in kaadida kaliyihiisa ka soo dhamaadaan inay tubooyinka markay ka soo dhamaan in dibadda loo soo saaro balse ilmahan xanuunka haya dartiis kaadida gudaha ay dib ugu noqonaysa marka kateetar ayaa ku xiran oo kaadida dibadda uga soo saaraya. qalliimo aad u fara badan ayaa la sameeyay balse qalliinka saxda ah
weli waa u dhiman yahay oo laguma sameyn. taasna waxay u baahan tahay in dibadda lagu sameeyo. laba nooc weeye, inuu bilateral ah iyo inuu unilateral yahay, inuu dhinac ama laba dhinac ka jiro. hadduu dhinac yahay kharashkiisu waa ilaa $4,000. hadduu labada dhinac yahayna kharashkiisu ilaa $8,000 ayuu noqonayaa. markaan la xiriirnay isbitaallo kala duwan oo Turkiga iyo Hindiga ku kala yaalo qaliimadan sameyn kara. waxaa sidoo kale iyadana jirta mashiino ayaa loo baahan yahay in lagu kala ogaado oo wadankii mashiinadaasna ma yaalaan. riboorada markaan akhrino iyo dhakhaatiirta la xiriirnay isbitaalladaas kala duwan, jawaabta ilmahan waxa weeye in qaliinkaas lagu saxi karo oo lagu badbaadin karo keliyihiisa. haddaba anaga waxaan usoo jeedinaynaa bulshooyinka in arintaa ay ka qayb qaataan oo ilmahan caafimaadkiisa laga qayb qaato oo la badbaadiyo keliyihiisa. hooyada murugaysanna garab loo noqdo. inaga waxa weeye mas'uuliyadeena inaan fariintayda soo gaarsiino marka ugu horeysa. tan labaadna waxa weeye inaan wixii tala caafimaad oo loo baahan yahay iyo qaliinka saxda iyo meesha saxda oo qaliinkaas inaan tala bixin caafimaad ka bixino. balse waxa weeye wixii kharash ku saabsan hooyada ayaa kala xiriiri kartaan oo lambarkeeda shaashada ayaan kusoo gudbinay. marka ugu dambeyn waxaan rabnaa inaad arintaas ka danqataan, qof walba oo arintaa xil iska saaro, ciddii awood u lehna inay arintaa ka jawaab bixiso. si gaar ahna qofkii aan awood u lahaynna inuu fariintan sida u gudbin lahayd oo dadka qof awood u leh uu u gaari lahayd inaad nagala shaqeyso ayaan ka codsanaynaa. wabillahi tawfiiq. wasalaam.